agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland ayaa soo gaadhay magaalada Laascaanood. Agaasimuhu wuxuu dhagax dhigay wajigii labaad ee marshuuca leydhka tamarta ku shaqeeya ee lagu xidhayo wadooyinka ku yaala magaalada Laascaanood, kaasoo qayb ka qaadan doona ammaanka sidoo kale soo celinta bilixda magaalada Laascaanood. waxaana munaasabad kooban oo ka dhacday howlka shirarka dowladda hoose ka soo qayb galay barasaabka gobolka maayirka degmada Laascaanood, xogayaha dowladda hoose, cuqaal, waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeeya waxaa halkaa ka hadlay uqaas iyo waxgaradka iyagoona soo dhaweeyey marshuuca horumarineed ee laga fulinayo gobolka Sool. wasaaradda tamarta iyo macdanta ay ka fulisay gobolka Sool muxuu ahaayay 2 kilomitir iyo 400 oo mitir muxuu ahaayay taas oo noqonaysa tirada laambadaha muxuu ahaayay 60 mid maantana waxay keeneen 75 xabo wasaaradda tamarta iyo macdantu iyadoo hawsha uga jeeda qurxinta magaalada security-ga iyo ganacsiga intaba kala dardaarmayna oo aan idinku soo dhaweynaynaa baahida solarka ee iftiinka magaaladuna intaa waa ka baaxad weeye, laakiin intii hore noogu qabateen iyo intaad wadaan noo dayactira. cid kasta oo wax noo qabanaysana gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa. waxaanu aad iyo aad masna uga codsanaynaa inay waliba sii durkiyaan 75 miyaa la sheegay. waxaanu rabnaa 200 oo dambe nooga dhiga. magaaladu waad ogtihiin aad bay u tarantay magaalada. aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa wax qabadkan, waana loo baahan yahay, waana ka mahadnaqaynaa. waxa la wixii wax qabada ee la mid ah ka hadda la qabanayo iyo kuwa dambaba waa soo dhaweynaynaa. waxa mas'aalaxada ay noo wado wasaaraddu iyo mashruucan tamarta wixii hore noo qabtayna waa ka mahad celinaynaa. waxaan dambena waa qaadanaynaa. waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda inay 60 laambadood hore noo qabatay, maantana 75 bay noo wadaa. Baha waaxda qorsheynta iyo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland waxa weeye mar kale in maanta magaalada lagu wareejiyo wixii lagu dayactiri lahaa lagu fuulayay muxuu ahaa bahalka. qodobka saddexaad soo gabagabeynaya ee maanta safarka ugu daarna waxa weeye markii la arkay faa'iidada kuwii hore isla markaana loo wada joogo dayactirka kuwii hore muxuu ahaa hawshoodii iyo qalabkii gaariga lagu dayactiray lagu fuulayay. waxa la yidhi maadaama baahida magaaladu kortay, magaaladuna korodhay, dariiqyo cusubna soo baxeen oo qaarkood ay mugdi yihiin in la sameeyo waxa weeye 75 xabo oo kale kooban yihiin. waxa sheegay qoladii ugu horeysay waxa weeyaan 75 cusub iyo 60 hore oo hore ugu yaalay iyo gaarigii lagu dalaacay lagu toosinayay. intaas boorta mashruuc ka kooban yahay 3 qaybood. waxaan anagu ugu tala galnay in degmada Laascaanood ay la tartanto gobolada inteeda kale iyagoo waliba isticmaali doona leydhan laga iibinin ka naturalka Ilaahay siiyay ay ka faa'iideeyeen. Beyntii waxaa halkaa ka hadlay xogayaha dowladda hoose, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sool, maayirka degmada Laascaanood iyo gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jeere. wasaaradda tamarta maanta socdaalka waxtar kale ay loogu timi runtii waa mid qiimo weyn loogu fadhiya. waxqabadka gobolka Sool ee maanta aad dariiqyada madowga iftiiminaysan ee solarta ku xidhaysaan waxaanu lahayd waxgaradka ama odayaasha ama buluuska odaygiisii gobolka Laascaanood ahay waxtar weyn weeye, waana baahi ka jirta gobolka. farxad weyn oo ah in halkan aan ku taafurayno mashruuc in badan soo socday, in badan aan sugaynay oo ku saabsan nalalkan cadceedda ku shaqeeya ama tamarta ku shaqeeya oo in badan ma hawshoodii lagu jiray. waxaan hawsha uga mahadnaqayaa wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo hay'adda NIS Foundation eerka degmada agaasimaha guud ee wasaaradda macdanta iyo tamarta Cabdirax. waxaa maalin weyn mashruuca aadka muhiimka ah ee leydhka cadceedda tamarta ku shaqeeya ee wasaaradda tamarta iyo macdanta ee Jamhuuriyadda Soomaaliya inoo keentay, taasoo ay ka mid tahay horumarintii uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta Laascaanood waxay tubta saartay degmada Laascaanood wadadii horumarka. waxaa la rabaa dadweynuhu inay ilaashadaan iyaga waxaan iska leh qadar tarbi Somali News magaalada Laascaanood.